السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. إلهي بانكم هذيننا ولا ليال annakana na waafajiyey inaan ilaahay dartii nin soo buuqanno, ininkana ini waafajiyey inaad ilaahay dartii aada noo soo dhoweysaan oo ilaahay dartii masaajidka aan ugu wada tukanno, ilaahay dartii aan u wada fadhiisanno. taasaa nicmo weyna. xadiis alqudsi baa ilaahay yidhi: wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya walilmutajaalisiina fiya walilmutazaawiriina fiya. waa xadiis alqudsi. ilaahay baa le kuwa aniga dartay isku jecel, ee aniga dartay isku ziyaaranaya, ee aniga dartay isku buuqanaya. ilaahay baa le kalgacaylkayga ayaa u waajibay. fadhiga aan ilaahay dartii aan u wada fadhiisanay ayaan ilaahay jalla wacalaa jacayladiisa iyo ridihiisa aan ku mutaysanaynaa in sha allah. ilaahayna kulligan waan u wada baahannahay. mar walbana waxaa laynaga rabaa ilaahay inaan garanno oon ilaahay jalla wacalaa aan ugu mahadnaqno nicamta ilaahay uuna siiyey. aadam calayhi salaam markii ilaahay nebi aadan uu abuuray, ereygii u horeeyay nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa alxamdu lilaah. markuu hindhisooday, qur-aanka suuradda ugu weyn, acdam suura fi kitaab illaahi caza wajalla waa suuratu alfaatixa. ayaduna bacda albasmala waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. mahad dhammaanteed waxay u ahaatay lilaah, caalamiintoo dhan allihii rabbiga u ahaa. ahlaljannuhu markay jannada ay galaan, iyo ka laftigoogu hadalka u dambeeyay odhan doonaan: wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. markay ilaahay baryayaan ee ilaahay ay ugu shukrinayaan badbaadada ilaahay uu ka badbaadiyey dhibaatadii qiyaamaha iyo naartii, ee jannana ilaahay jalla wacalaa uu dhaxal siiyey, bay odhan doonaan: wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuurun shakuur. banka qiyaamo khalqiga markay joogsadaan ay kulligood isa soo wada taagaan, hadday ahlaljanno ay yihiin iyo hadday ahlalnaar ay yihiin, intuba ereyga u dambeeyay ay odhan doonaana waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabbixuuna bixamdi rabbihim waqudiya baynahum bilxaqi waqiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ahlaljannuhu jannada ay mutaysteen, jannada ay heleen, badbaadada ilaahay jalla wacalaa uu naarta iyo dhibaatada uu ka badbaadiyey ku xamdinayaan. laakiin ahla naarku maxay ku xamdinayaan baa la yidhi? ahla naarkuna cadliga ilaahay markay arkaan bay xamdinayaan. wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid. naf walba halkaa waxay la timiday baa laga abaalmarin doonaa. afdalu ducaana wuxuu nebigu yidhi inay tahay alxamdu lilaah. afdalu dikri laa ilaaha ila allah. cibaadada qowliga ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laa ilaaha ila allah.
وأفضل الدعاء الحمد لله بريا إلهي لبريانا وحاوق فضل بدن إن أتداد المرء الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي بالعداد شكر دان ونعمة دا أن نسيي يقول شكر دان بإلهي لأنه ونزي أدنيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا أورنجري صدح هايلو بن أبو أورنجري صدح با إنك حدا استغفار با إلهي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتجن با لغا يري إله آد بريسا نر والبا آد نقونيسا حقيسا والله دافد بدن ونحريس بدن ويان أدعوني أستجب لكم با إلهي يري إبويديست أنيقو إبريا أنيقو نوانينيقا أجيب يا دعادي ني لئن شكرتم لأزيدنكم هذا نعمتي إذا يقول شكر دان با إلهي يري أنيقو نوانيني بيرنيا دنبيلاته مر والبا دنبي وكاسو دعيا marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa tahay mid baahan baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalay ducada ilaahay aqbalo ee ahadiista nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay yaa waxay weydiisanaya hansiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtaan dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajayo baahidaada ilaahay u sheego aqrab ma yakuna al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun faakthiru fihi ad-du'a faqiman an yustajaba lakum nabigu alayhi salatu wassalam markuu adoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wajiga dhulka uu ku haye xilliga ducada badiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa xaqiiqa abu nabigu leeyahay xilliga ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan ka warqabin oo u ducaysa bidahar alghayb aad uga ducaysa oo ilaahay iimaan u weydiisa hidaayad ilaahay u weydiisa tawfiiq ilaahay u weydiisa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa caafimaad ilaahay aad u weydiisa taasaana ugu ijaabo dhowbu nabigu alayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslimka aan warkaa qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag baa taagan mar ali markaad walaalka u ducaysidba walaka mithluhu malagi wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka mithluhu adiguna waxaad walaalka aad u tiri adigana annaka ku nidhiyo aamin dhabu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay baa garan laakiin ducada malag waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon ka warqabin aad u ducaysid waxaad walaalka ilaahay aad u weydiisid adigana malag baa ducada tullamida kula dul taagan oo ilaahay ku bariyaya tad'uuni astajib lakum ibariya baa ilaahay ku leeyahay ducadina waan aqbaliye marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waa inaad tiraadid alxamdulilaahi rabbil aalamiin maanta inaka su'aasheena badan baahideena badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmada ka maqan bay eegaan inta nicmada ay haystaan ma eegaan nicmada araga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyada nicmada arsaaqada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadii nicamta ilaahay nagu galadeysay hadaad tirisaan ba ilaahay leema soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu waa maxay waa inaad tiraadid mar walba alxamdulilah ala nicmat aliimaan walislam waliba nicmada ugu weyn ilaahay jalla wa ala uu nasiyay waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmat alislaam haddaan garan lahayn oo hoos u eegin lahayn iyada nicmo inoogu filan مثقال ذرة من إيمان قفك قلبك مثقال ذرة من إيمان وخيرا أما إيمان أو قلبك سكجري الدنيا كتجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي الجنة وحو كسيا جغل لك الدنيا توبن كيل لك با جنة إلى هاي كسيا موسى عليه السلام إلى هاي وكي بريا يري كلمة كوكو بريا يسي مركاسا إلى هاي كو يري يا موسى وحاتر هذا لا إله إلا الله ده
markaasuu yaa rabbi addoommahaaga wan wanaagsan kelmaddan way yidhaahdaane tug aniga ii gaaraysi oon kugu baryo markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa 7 ciriga 7 dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kelmaddaana kafadda kale la saaro kelmaddaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi xadiis saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalinka qiyaamaha nin ummadayda ka mida ayaa ilaahay banka qiyaamo kala soo dhex bixi doonaa waa laga soo dhex soocan doonaa markaasaa la hordhigi doonaa 99 diiwaan oo midkii la fura buu nebigu uu leegyahay ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay markaasuu addoonku yaabaya markaasaa ilaahay ku odhan doonaa malaa'igtaydii camalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan anigaa geystay afalaka cudrun haddana wax cudurdaara ma sheeganaysa markaasuu leeyahay maya balaa ina laka cindanaa xasanatan laa dulma calayka alyowma uxdur wasnaka agtayada hal xasano ayaad soo dhigatay oo kuu taalle halkan meeshan cidna laguma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaaha caadilka ayaa ka taliya wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowma alqiyaama falaa tudlamu nafsu shayئa wain kaana mihqaala xabatin min khardal aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin mihqaala dara in la eg oo khayra ama oo shara ninka maalintaa banka qiyaame isagoo wata tega laga dulmin maayo baa ilahay lagu xadgudbi maaye waxa uu la tegay baa laga abaalmarin doonaa waayo ilaah caadila maalintaa ka talinaya maxkamadaas mid laaluush qaadanaya mid laaluush la siinaya mid shafaacad maaragtaana ilaahay noo ergee markaa la odhanaya meeshu ma taagna waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba camalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya deedna ilaahay tabaaraka wa tacaala shafeecadda malaa'igta iyo shafeecadda ambiyada iyo shafeecadda culammada kadib ayaa la bilaabi doonaa markaasaa ilaahay odhan doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato kuu taalle oradoo halka camalka lagu miisaamo teg baa lagu odhan doonaa waxaa la soo saaray buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bitaaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh dadna markaasaa la qaadi markaasuu leeyahay maxay intay kaga dhacaysaa kelmaddan warqadan yari 99 register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa markaasaa la odhan doona uxdur wasnaka halka camalka lagu miisaamo adigu iska teg markaasuu la keeni doonaa 99kii register xaggan ayaa la saari doonaa kelmaddii towxiidka qalbigiisa ku jirtuu la yimidayna kafadda kalaa loo saari buu nebigu yidhi falaa yadkhulu maca ismi illaahi shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirta buu rasuulku yidhi kalimatu tayiba dad muslimiina oo shahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camiraya oo diintii baranaya oo diintii dhagaysanaya oo diintii ka hadlaaya ayaa ilaahay naga dhigay kam nicmada qadarkeyga maba garan karnaba maanta inagu dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkeyga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqala lama maro waa sugna dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeega intoo la garto in loo ilaaliyo ma qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya waa ilaa acmaal aan mutaysanay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmaddiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadkaygi wan wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilahay la munaajoonayo
nicmada inta aan haysanna la raba inaan eegno inta naga maqan ha eegin inta ka maqan ha eegin dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmada inta ka maqan bay eegaan yuta yawm alqiyamati بأنعم أهل يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق صبغة في النار ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacada qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado hal mar kaliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa naarta la gelin waa laga soo celin doonaa markaasaa la weydiin doonaa oo la oran doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmad ma ku soo martay intuu ilaahay ku dhaartay buu leeyahay weligay nicmad iyo barwaaqo haba yaraatay aan umaba arag buu leeyahay waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar kaliya nicmada adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmad la hadal qaadaba computerkeena ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena ku soo degdegaysa nicma salaada jamaacad ku tukatay baa nicmada hadalka ilaahay la noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada maqalkaaga aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada sujuudaad sujuudaysid baa nicmada carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an labada lugoodna halkaa ku go-an indhalo oo weliba aan waxbana arkaynin barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay adigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waa doorsooyo waa baras baad leedahay waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayadee buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi laha inagu maanta nicmad markaan maqalo waxa maskaxdeena markaaba kusoo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa garanayn laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay technology ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaane iska dhaaf baa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxau ka baxay isagoon ilaah iyo rasuulkiisa aanan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan
adiga indha qabay bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahada aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugooda caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna fayusbaqu sabqatan fi ljanna fayuqaalu laka hal mara bika shiddatun qad hal mara bika bu'sun qad fayaqulu laa wallahi ya rabbi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam xadiidu macnihiisu ahaa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa ugu mashaakilka badnaa kaasaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yihi isagoo laakiin jannada loo sii wada ahlu jannaa hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin yusbaq waa la gelin mar keliya waa laga soo qaban markaasaa la odhan doona weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah ma la kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may weligay dhibaato maba arag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka la noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu nebigu yidhi addunya sijnu lmuumin wa jannat lkaafir marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaraan maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecadaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn uu shareecad iyo diinta aaminsanayn shahawadiisii adduunyadan uu ku gudanaya isagu markaa jannadiisii waa halkan maalintuu dhintana jannadiisiibuu ka baxay oo jahannama loo qaadaya isaga marka daahirkuu ka raaxaysanayaa daahirka aqal wanaagsan gaadhi wanaagsan guri gabadh qurux badan dhar qurux badan wadan qurux badan nolol daahirka ka qurux badan laakiin gudaha way ka ooyayaan amaa muslimka miyaa muslimku daahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn uu dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo colaadu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna qofoo muslimku guduhu ka raaxaysanaya hal qisaan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi
way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu maxaan ka dhigaa waa qiso مثل يعني waxay ku yiraahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysan baan u maleyn shabagaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaas uu kadibna waxay yiraahdeen in muddo asada u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engineer baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaas uu ku yiri kadibna markaas sayidada in muddo asada u shaqeey magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaas aad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu oran markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaas uu kadibna dhowr sano sida u shaqeey hay lacagta urur banka dhig kadibna laashkan dheereeyo ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhaana Djibouti fadeed kaabad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaas uu kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka fureynaysaa marka branch meelo ma aragtaanay aad ku iibisad kalluunka wadanka dhan ba kalluunka adiga siinaya markaas uu kadibna muddo sida uu shaqay haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka sameeynaysay markaas uu kadibna warshadaas marka way shaqeynaysaa adduunka u kala daraysaa markaas uu kadibna qasri weyn oo vilayad dhisano si fiican baad u seexan bay ka yiraahdeen wuxuu hadda marka ay timaadeen baad hurdayga kicisayna guuri wuxuu ma hurdo un baan inta u maraa buu soonigii hurday ma imikadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin nolosha daahirka maaha nolosha muslimku ibn Taymiyyah rahimahullah ayaa yiri inna lillahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu jannada adduunyada waa maxay waa xayaat al-iimaan wal a'maal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay oo qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirka ku hagaagta tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn shay masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaaga oo ka dhinta waa masiibo islaantu oo ka xanuunsata waa masiibo ganacsiga tijaarada oo ka baabada waa masiibo hatta ardayga jaamacadaha dhiganay hadduu imtixaanka waayo masiibo warka laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhira markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla an-naarka wal iyad billah markay naarta ay galaan quraanka ilaahay noogu sheegay wanaadu ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun afarta sanadood ayay ahla an-naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin ya malik wa malaga furaha naaraha hayay ku leeyihiin rabbiga waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhira markii la tagana masaa'ibta aakhira masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan saadarteed adduunyadu way nagu weynaan agteena waxa la rabaa in nala weynaato diinta islaamka muslim
aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniyo naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey 60kii sane adduunyada lagugu deeqay 50kii sane adduunyada lagu siiyey waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ataa as-Sulaymi rahimahullah ayaa nin taabici abu haayo aad u murug badan salafu saalix waxa lagu yiri ya sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahay dadka maxaad dheer tahay baa lagu yiri waa nin kale yiri 30 sano isagoo qoslayna lama arag 30 sanana samada ma eegin baa la yiri dhulka musdaa u eega u soconayay ninka meel u cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaasuu ku yiri al-mawtu fi 'unuqi والقيامة موقفي والموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرغونين محان لم مرغونين بويدي غيري با قورتا يسوران قبرنا وأقل كيغي قيامها واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنبري ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنة ابن عباس أيا اللي جوجي دونا بنك قيامة طبعا كن أو سنة الحساب تكون دماني دونت بل ساعد هلك جوكسو مالين ما جوجي كرنا مال أفرتن كن أو سنة أيا صدى الله تاقنا ابن عباس ومفسر في القرآن وح كهري وح عددك وح كويلك كهرين يا مجرو meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabayaa ma leh geel la harsanayaa ma leh yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nun yughnihi waliba waa maalin baa ilaahay waa maalin habeen lama sheegin yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال له شيء وايوب ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين تاس هاي سوق يسبوري جد كسرانا وطريقا ظل مرايي ربي جاي مركل اللي هرجو جين وحكى له كل ما قال نبوي لا هبين بي سيحدان ولا مالين بي سيحدان دادك آخردو أي قلبي قوغا كل بعدي أياكو قصلي لما أركن أياكو أدو يد سنين لما أركن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة وهرير السعودان أيا ميل مزبلة ماشن قشن قبك الليلة وسخذ الله الشبو أيو عمر اسكورتاقي markaa bay saxaabadii ragii la socday ajilada ahaa way dhibsadeen ilaa cimaamadahoogii ay sidaa yidhaahdaan markaasuu cumar ku yidhi haadihi dunyaakum allatii taxrisuuna calayha adduunyada aad maalin iyo habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambaysaan na tusinaya eega buu ku yidhi waa taas adduunyadu qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma leh waxaa qiimo leh waa diin ninka diinta qiimeeya qiimo leh hegtiisa ina akramakum cinda allahi atqaakum iimaanka ilaahay nagu qiimayn hadba intaa diinta islaamka aad qiimaysa adna ilaahay ku qiimayn halka diinta islaamka aad digtaa ilaahay adigana ku dhigi maanta muslimiintu halkay joogaan ilaahay ma dhiginayo kaas dhigay yaayna dhigay halkan joogna maanta camalkeena na dhigay adaa is dhigay lima iyo kama baan ku jirnaa maanta dhexdeed lima iyo kama dowlatul cabbaasiya ninkii mutawakkil la odhan jiray ayaa dad muslimiin ka qaatay dhulkoogii iyo beerahoogii markaa bay dadkii muslimiintu intaysa soo raaceen gabadh walaashii oo la dhalato nafiisa la odhan jiray bay ku yidhaahdeen walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beeraha yagii tijaaradeedii xoolaha yagii buu naga qaatay nagala hadal bay ku yidhaahdeen
markaasay ku tiri saafcalu insha Allah waan yeeli doonaa sidaas والله hadli doonaa bay ku tiri halkii iyagoo la taagan buu boqorku dariiqa soo maray baa leeyahay markaasay ku yiraahdeen waaka markaas boqorkii lagu yiri xaraskiisii baa ku yiri walaashaaba meesha taagan walaashaaba intan taagan oo halkan joogta markaasuu ku soo leexdo walaashii buu yimiday markaasay dadkuna ku soo urureen laba hal eray bay ku tiri waxay ku tiri lima markaasuu ku yiri kama markaasay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii marka horeba ninkan ka cabanayay kaga cabanayay ayaa waxay ku yiraahdeen gabadhii waanakii ku sheegnay kugu soo ashkatoogne isagana waa ka Ilaahay meesha soo mariyay miyad nagala hadashay bay ku yiraahdeen markaas ay ku tiri waanigii la hadlay ma isaguna waa kii jawaabay markaas ay ku yiraahdeen lima iyo kama ummad siraadeen maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yiraahdeen markaas aan ku iri lima tadlimuna an-nasa maxaa dadka u dulminaysaan oo waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku iri markaas iigu jawaabay kama takunu yuwalla alaykum waxaad ku tiraahdaa sidaad inniku aatihiin ayay madaxdiinuna noqonaya ka dhabu yiri waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tiri inniku Ilaahay u toobadkeena haddaad hagaagtaana madaxdiina hagaagi haddaad baanaataana madaxdiina baanaan hadduu amalku hagaago xaaladda adduunyada dhan baa hagaagi hadduu amalku naga xumaadana xaaladda adduunyada dhan baa xumaan acmaal baa Ilaahay doonaya amal halgamaanta muslimiintu ay joogaan amalkooga dhigay haddaan soo noqonana Ilaahay tabaaraka wa ta'ala rahmadiisa waa waasi' وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون با إلهي يدي سو نقضى با إلهي نليه دمانتين سعد الدون كان يأخر عدو الليبانتان هذا الليبان دون إنه ومحي وإن الإلهي إنه سو نقضى هذا العريري قربنا إنا كبحنو وفقرق كبحنو وندلق كبحنو وقحوة النمذا كبحنو وقال هذا مسلمين تواي قعما هوسا يستان هذا الربانين كبحان وإن إلهي الله سو نقضى وإلهي سو نقضى ومحي معنى يقول كتابك إلهي وصو النقضة سنة نبينا وصو النقضة عليه الصلاة والسلام دين ديني وصو النقضة سي دين الله نقون كرا دين تسنى الله نقون كرا ومحي إن النلسين الديني أي تمادو ددال با إلهي كحري دين إلهي وصو ددال ويان الدويدا ما أنت أن كدب دعينو يا بحية بلي شيء يا بحية إلهي با بحية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهي ما بحية عد كلمة بحس كو فقير كدق وفقير كو غني كدق وغني كو عزي وعزيز كو دلين عد عزي كرتا ملا كو إلهي نعمد وقرتنا عد نعمد كوي عين كرتو كقادان كرتا مجرتو كي إلهي جل وعلا هدينا عد ما باديين كرتو كي إلهي باديين عد ما هديين كرتو كي إلهي تبارك وتعالى وكرو قادو عد وصو ما دقي كريسو كي إلهي وصو دقي عد كرو قادي كريميسو يحي إلهي بحيو عد ما منعين كرتو وحي إلهي منعين عد ما بحين كرتو عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيا مركو داوين هذي إنا جيسيبا كويدا آبا دردارا كما الضنبيس يسيبو يري وادي وين هذا وحنوسنت هاي مرقاسولي وهاجا يسوف ريسيا وحنوسيا هي وضريح وجيفا لكن قولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام اسقوا جيفا إنه شيء ديدي هي احترام وهذا الكإلهي احترام أيو وهذا النبي حرمين أيو أيوني صوتي ريا ولا صوتي ريا مرقاسو كوري دقي سينا كيجيو إنك لن تجد حقيق إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا المعني صحابه كيري بينك يجيو إدقيسو إسلام ماذا حلاوة إيمانك معانكيس لا إله إلا الله معانك مادة من حقيقة ذو قلبك ما يقلن إلى أدقرتا وحكو دع السنة كوما دافين وحكو دافين السنة كوما دعين أركان الإيمان ركنك أقدم بيبو أشيغي
وهلك ما أنت دين المسلمين تهكذا وعنتها إلا ما رحم ربي مويانه إيمان بالقدر إيمان بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وها الدنيا كدع يا شر خير ووحي لها قدري وياه موضوع عصو كلها حقيقة الإيمان إيمانك معانكيسا لا إله إلا الله حقيقة يدو قلبك ما يسنقل إلى أدقرتا وحي كدافي سنكو مدعين وحكو دعين سنكو كوما سيغان هذا الكان أنو اسكمله بوكيدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيان كما غلي سقوله خلقك إلهي مركو أبورك أبوري شيء أبور إلهي أبوري قلم بوها مرقاسا إلهي كوري قلم كي قر مرقاسو قلم كوري يا ربي محان قرأ اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة هذا المعني سوها وحان قرتابا لغيري إلى ساعة قيامة أيضا عيسو وحا أدوية كدعي ودن قربا لغيري عقيدة داس اعتقادك نوع عاصبو يري صحابي قاس وحان نبري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أظن اعتقادك قبل حداد دمتد وحاد وقات النار بات كود عدي أقوبو كيدي إيمان بالقدر وحاد كود عايا وحاد هيستو وحا كامغن وحا أدوية يسبدل كدعايا يا كينا الله بقى كينا عيدك لما كنتو وحا إلهي لها عيدك لها ونسبين maalintii habeenka ilaahay baa keena nidaamka caalamkana gacanta ilaahay ma ina gacan kale kuma jiro marka iimaanka iyo diinta barashadeeda waa loo dadaalaa ama adduunyada waa inta ilaahay noo qadaray weeyaan si fiican hadalka u dhageysta diinta dadaal baa ilaahay ku xidhay adduunyada miya waa inta ilaahay ku qadaray weeyaan hal مثال عجيب ani sheegay oday maalqabeen hadduu dhinto dhaxalka ayaa qaata ilmihiisa ilmahaasi xoolahan wax tacab isaga kama gelin laakiin ilaahay baa u qadaray ilaahay baa u qadaray waa adduunyadii laakiin nin caalima oo muxaditha oo rabbaaniya oo ilaahay ku xidhan oo weliba karaamo leh oo ducadiisa la aqbalo oo wali ilaahaya hadduu geeriyoodu dhinto inankii uu dhalay cilmigii xadiidkii qur'aankii karaamadii taqwadii qabuuliyaddii uu lahaa ma ku wareegi kartaa xageega kama dhacdo ma dhulkeena ka dhacdo war ma ka dhacda dhulkeena ma jirto waayo waa diin toora waa adduunyo tan waa diin diin waxa ilaahay shard uga dhigay in loo dadaalo bas haddaad caalim rabto inaad noqoto waa inaad cilmiga barataa haddaad muumin noqoto iimaanka waa la bartaa haddaad dooni mutadayin inaad noqoto diinta waa la bartaa islaamnimada waa deeq ilaahay ku siiyey laakiin muslim dhaba inaad noqoto adi dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa shareecadda muslimkuna waa shaksiga islaamnimada ayaa inoogu deeqa imika yaa inagu deeqay ilaahay baa inagu deeqay soo ma laakiin muslim quman inaad noqotaa maxay ku xidhan tahay dadaal bay ku xidhan tahay yarxamuka allah dadaal bay ku xidhan tahay saa darteed bay culimmadu leeyihiin adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaalna aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise ducuu ku helay bal ii sheega رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب محاكو حقا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب مركب إلى هاي وانا قبل لي دعاء ديسي ملكي قادوك ودما قعنتك قليني ما هلا عقوح إلهي ويديستي ما هالدبلوم يتعلين يرماها وملك ولبا إساق الدبدي عد بنا عنو قلمين ayaa ilaahay yiri ilaahu isii dambigayga ilaahu dhaaf mulkiga caankaasan ilaahu isii ilaahay wuxuu yiri markiiba wuxuu yiri waan ka aqbalo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyay marka
هذا الكشمبرها الله بري قرآن جد هذا الكيجيب ومغلي دبيلها الله سخري جنك يا شياطين تي عفاريدة أيا قعنتي سيلهاي سوقلي أو أمركي سي بدها أنت كو قلان جواهر تهدامن كي وصو صاريين أقلد ودسيين ودوين كي سمينيين وحلي وحو أبهضور النبي سليمان جنك يا شياطين تودرايي وحلي وحا شمبري هوضا الدولو دنا كوركي سي سدا أسعون جرين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأكد عيس دعاداس ملكي عالم كودن إلهي انتو السوق هذي أي إلهي النبي سليمان قعنتك قلي بلا شروط لا شروط لكم حرم مرقاسا إلهي هذا عطاؤنا تنوى ضيق يدي فمن أو أمسك بغير حساب هذا دونت قال ليسو وعدا دونت كو قال ليسو أو سي هذا دونت حيسبا لغو يري وحبا لغا ويدين ما يتن لغو بحسابين ما يبتن وأدويو لكن قصة النبي إبراهيم عليه السلام دقيسو والنبي إبراهيم وخليلك إلهي جل وعلا ولب دعوة امتحان بوصو مري markuu weydiistay ilaahay jalla wa ala in loo ziyaadiyo iimaankiisa in macrifada rabbigi ay u korodho markuu weydiistay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi almawta qaala awalam tu'min qaala balaa walakin liyatma'ina qalbii maxaa ku xigta qaala fakhud arbacata min at-tayr shuruud baa yaa la hordhigay isaga afar shimbirood la kaalay baa lagu yidhi haddaad doonayso iimaanka inaan kuu ziyaadino macrifada rabbiga inay kuu korodha haddaad doonaysid afar shimbirood soo qabo mustaciduun diyaar mawtiinde ya halkaan u socda waad fahamteen soo maha فخذ أربعة من الطير أفر شمرات سوق بالغيري علم اليقين ولا يهي لكن حر عين اليقين وأركو علم اليقين ولا يهي أولم تؤمن بالغيري ما درمين واحد انتي سانو صونو لينو ميانا درمي سنين إن الصون صاري كرنو inaan abuuri karno mar kale inaan noolayn karno qaala balaa may waan rumaysanahay buu dhitaa rabbigayow walaakin liyadma'ina qalbii waxaan rabaa in qalbigayga iimaanka iyo macrifadaadu ay sii biyo dhigto min darajati cilm alyaqiin ilaa darajati cayn alyaqiin inaan arkaan rabaaba shaygii oo la samaynay inaan arkaan rabaa waa hagaaga afar shamirood la kale baa lagu yidhi waa shardigaas oday da'weyn weliba afar shimbirood oo weliba aan isku nuuc ahayn bay culimmadu yidhahdeen oo kala nuuc ah oo mid walba waddan gooniya meel gooniya laga soo qabanayo oday da'weyn soo qabashadeedu may u fududahay mise waa u dhib yar tahay mise way ku adag tahay maxaa loo sheegay qisadan xikmadaha qur-aanka allah ina fahamsiiyo qur-aanka waa inaan tadabbur ku akrinaa moogtahay waxaa laynoo sheegayaa sulaymaan oo adduunyadoo dhan ilaahay weydiistayna bilaa shuruud baa lagu siiyey waayo adduunyadu qiimo ma leh laakiin ibraahim wax qiimo luuna weydiistay ka dhigan tahay shuruud baan ku xidhnay isaga diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxaa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisa ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray
oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysii way siisay odagii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odagii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay oo amaan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega ha aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu uu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilin uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odagii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaalide nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba sooniga gubayey ma maya aabba tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waktigaaga maalkaaga ardayga waktigiisa inuu diinta barto ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi طalab اlcilmi fahuwa fi sabiili اllahi xataa yarjica maalkaaga waktigaaga ood wakti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba miig kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwaddu garab maree dacwadoo dhan maaha sidaasi ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garab maray dee qolo walba qaar yar mushadidiin noqdo oo iska leeyihiin soo ma oo yar nuura kaa u nuuray markaa laakiin manhajku maaha manhajku ma qabo in reerka la dayaca ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam
wuxuu yaa rasuulallah inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdiga nebiga dagaalna waa loo baxayey markaasuu yidhi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu ihi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu yidhi hooyaa ka nool buu yidhi ma iyadoo kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaaga aan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yidhi soo janno ma doonaysid haa alzim rijlayha uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugaheega qabso u duug u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay laakiin waxaan leenahay waktigeennaan qaybinaynaa tafaraq licibaadatii baan ku shaqaynaynaa tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan waasudda faqrak wailaa tafcal malaatu yadaka shugla walam asudda faqraka waktigaan qaybinaynaa waktigaas reerkii waktigaa shaqadii waktigaa tacliintii waktigaa dacwadii waktigaa masaajidkii waktigaa qaraabadii waktigaa ubadkii waliba inaku haddaan dadka af soomaaliga ku hadla wakti baa ilaahayna siiyey laakiin waktigeenna maanta mujtamaceenna afkaa ku hadla intooda badan waktigeenna wuxuu ku daatay maalaayacni buu ku dhammaaday caamadaan leenahay war masaajidada soo gala culummada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaale ilaahay dartii jamaacadda u raaco naftaada soo islaaxi taajirka faqiirka hanig oday iyo inan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqayno ilaahay baa noo doortay yaa inoo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baa ina doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa laguu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar kuu tahay salaadiyo soonka iyo zakadiiyo xashku aday gaar kuu yihiin laakiin waxaa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwaddiiyo tacliinta ummadda anfacaysa diintana sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedille maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u soconno waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya ay u dhammaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada beri annagoo joogno ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow 22 sanaan joogay bur Yurub Denmark man 22 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu taalac noo raacayba ilaa ummadun guri lagu saleeyo bogta markaasaan haddana gobol kalaan tagnay nin waxaan helay markaa isaguna yidhi dalka Mareykanka waxaan ku noolahay 37 sano bal 10 barina raac oo naftaada soo islaaxi oo bal aakhirada dareenkii aakhiro in yar ka ilaahay alla soo munaajoonay markaasuu 37 sano wadanka joogaa buu yidhi haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qolaa nooli ururinayse culumay ducada igu dara buu yidhi haye waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hakeed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeyaa kii dalka joogay xagu u socdaa wuxuu ku ducaysay ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ay gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihiinaku in baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeyay la diray buu yidhi waa kaftan
laba nin baa loogu tagay wadayaxa dul fadhida Soomaaliya Hindi hindigii baa lagu yiri meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yiri ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cidla Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro de diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo Allah inagu anfaco sallallahu alayhi wa sallam